soo dhaweyntii iyo muxuu ahaay waa ka mahad celinayna wax aad iyo aad u farxad badan oo dadka reer galmudug iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda galmudug dawladda federaalka Soomaaliya intaba ay ku faani karaan waaye howlaha runtii galmudug ama ka soo dhamaaday ama ka socda hadda mashaariicda socota iyo kuwa soo gabagaboobay inta galmudug muddadii iigu dambeysay wixii markaa jiray ayaa aad iyo aad u qurxoonay oo aan ammaan badan iyo maxaan ku yiraahdaa bogaadin badan aan ka bixin laakiin maanta wixii markaas jiray wax maanta jira waa kaafi kala dheer runtii aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa dadka reer galmudug waxa ayagu ay qabsadeen ciyaaya loo cila dhaanshaha la yiri dadka horta ayaga istaagay ee dhaqaaqay ee wax inay qabsadaan rabo ayaa wax loo qaban karaa dadkuna way waxaad qabsataa wax lagu dareeya laakiin nin iska fadhiya meel ama gurigiisa iska jiifa cid inta u timaada kaalay waxaan qabso ama waxaan hor dhaysan malaha dawladda galmudug iyo dadka reer galmudug aad iyo aad ayay u dadaaleen مثالنا وحكى أبطن قلها المانتا عن فردنا قلها وكيلنا يقولون يقوليها كلا يوم حكم بام كده مانتي وحادي أدو قرح بدن واي ده الكاس عد كسر بحسي أو مقايب كقاعدتي أو أنتي لتريي أنت على ترين بقى وما سيين قلها أنا لستين السجع كم عن كده دم بدن كشرف يا كرامة بدن kuwa asaga boqol jeer ka weyn oo laakiin lagu dhisay marka casharka laga baranay waxay tahay marka la isu yimaado la isfahmo waxa dadka ka dhaxeeya iyo muhiimadda ay leeyihiin la fahmo in markaasi wax badan la qaban karo waxaan qabsan karin ma jirto dadka badan markay waxay wada leeyihiin u dhaqaaqaan waxa yar yar ay bixiyaan ayaa waxay noqonayaan wax aad iyo aad u weyn oo meel weyn ka soo baxo isu tagga waay yadullaahi macal jamaaca aan kala rabaa guud ahaan dawlad goboleedka galmudug inaan ku ammaano runtii deganaanshiyaha siyaasadeed ee muddadii la soo dhaafay ka jiray muxuu ahaay deegaanka galmudug oo dhan khilaafo yaryar iyo colaado yaryar oo meelo hoose iyo muxuu ahaay ka dhaca way dhacayaan dad bini aadan hadduu meel isugu yimaado wada macaamili tago khilaaf waa ka imaanaya laakiin dee mas-uuliyad weyn ayaa ka jirta meesha oo khilaafaadkaasoo dhan ay la noqon waayeen kuwa disaster ah oo Soomaalidu ku soo baxdo oo la yiraahdo war dadkan waa isxalli waayeene ha loo gurmado oo maxaan ku raadaya hal la xalliyo la yiraahdo anaan gaarin waxay tilmaamaysaa calaamad u tahay mas-uuliyadda madaxda iyo siyaasiyiinta iyo dadka reer galmudug inay qaateen waxaan rabaa haddana waxa dawladda federaalka ee qaranka u danta ah ee maslaxadeeda ee ajandaheeda ah ayaa horta galmudugna u dana dawlad goboleed kastana u dana dawlad goboleedyadu taladii iyo xukunkii iyo wax badan wax qabadkii dadka wax loo qaban lahaayoo dhan in badan oo ka mid ah ayaga ku soo wareegtay dawladda federaalka waa ka soo wareegtay laga rabo waxay tahay baarlamaankii aad tihiin sida hadda guddoomiyaha uu ka dhawaajinaya shuruucda aad ansixiseen tira aad iyo aad u badan waay shuruuc aad iyo aad muhiim u ah ku jira dabcan waxa muhiimka laakiin waxay tahay dhaqangelintooda shuruucda haddii inta la sameeyo buug meel ku jiro oo shelfi saaran oo iska noqdo wax macnaa uu samaynayo ma laha laakiin shuruucda waxaa loo sameeyey maslaxadda ummaddan maslaxadda deegaanka in la dhaqan geliyo oo laga dhabeeyaa la rabaa taasna baarlamaanku waa inuu xukuumadda ayaa dhaqan gelinta shuruucda laga rabaaye baarlamaanku waa inuu ku ishraafaa oo ku kor joogteeyaa intaas markay galmudug u qabsoonto oo airboorkooda airboor maxaan ku dhahday rasmi ah oo caalami u noqdo oo wadooyinkooda wadooyin maxaan ku dhahday gaadiidka si sahlan oo uga gudba ay noqoto oo ammaanka hadda ay haysato oo la sii xoojiyey lagu kabo dadka Soomaaliyeed ee galmudug ku nool noloshoodu way isbedelaysaa waxa muhiimka ah oo mas'uuliyadda loo wada qaaday oo adigu si khaas ah ugu qaadeen oo u dhaarateen oo kutubka quraanka kariimka aad gacanta dusha uga saarteen waa dadka reer galmudug
وreerka meel hebel degan ee biyo la'aantu hayso ee biyo ay ka fog yihiin inay biyo helaan laakiin hadda falaartii isha ku til tii salka ku til waaye tii salka ku til waad iska goyseene waad fariisateene ha lagu daro marka muxuu ahaay wax qabadkii dadka waa socotaa maalin walba tacliintu way ka fiican tahay intii hore caafimaadku wuu ka fiican yahay intii hore aad iyo aad ayay ahayd wax oo aanan filayn runtii markaan galmudug soo safrayay inaan arko laab lagu tasgaraynayo ama lagu tijaabinayo qalabka dhismaha yacni iguma jirin waxa aan quruxda badan oo galmudug aad ka soo arkaysaa aan islaha iguma jirin runtii wax weyn dad aqoon-yahano ah technicians ah injineero ah Soomaali ah oo yacni guriga laga dhisayo magaaladan Dhuusamareeb caasimadda maalan guriga laga dhisayo isma saxa inuu helayo in kale ciidda lagu dhisayo shamiitada lagu dhisayo qaabka loo shubayo jaayga maxaan ku raadaayo lagu dhisayo intaba inay soo maraan tijaabo oo la yiraahdo waa lagu dhisi karaa la yiraahdo kan laguma dhisi karo yani runtii halkaan aan ka sheegaya dadka Soomaaliyeed oo dhigayso wax laga filayo ma aha galmudug marka waa heer level aad u sareeyo kolkii hore halkaan mid waawgeyn bangiga dhaxan furnay maxaan ku raadaayo wax badan oo dhinacaas ah la hagaajiyay dawladda federaalka iyo dawladda galmudug sidii isugu xirmi lahaayeen maxaan ku raadaayo haday tahay habka cashuuraha iyo haday tahay habka kale yaa la iska rabaa dastuurka federaalka oo hadda wadnaa wax yarna kale mooyaan waxyaabo badan oo la soo go'aamiyay oo aan shuruuc ahayn laakiin maxaan ku raadaayo go'aan siyaasadeed ah oo inaad fulisaan leedka raba ayaa jira oo dawladnimada galmudug iyo midda federaalka intaba isku darkooda ah meel laga furi karo iyo duruuf lagu furi karo intaba waad dhisateen waad joogtaan aad iyo aad ayaa runtii ugu faraxsanahay guryaha aan soo arkay ee wasaaraduhu ay degan yihiin yani wasaaradaha adeegga bulshada bixiya wasaaradda tacliinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha daaraha iyo guryaha ay degan yihiin runtii iyo xafiisyada ay fadhiyaan hadda wax soo saar la idinka sugayaa marka waxa dhimo wax soo saar beertii waa la islaaxiyay waa la hagaajiyay waa la tacbay laakiin wax soo saarka la idinka sugayaa beer qurux badan oo laakiin aan maxaa waaye badar badan aanu ka soo baxayn ama sabuurka ka soo baxaya oo yahay sabuur caata ah oo aan miro badan lahayn haday noqoto war maxaa qaldan waa idinku soo noqonaya waxba idinka qaldan bilaashaad u qurqurxoontiin waxba idinka qaldan la idin leeyahay laakiin hadda waxaan idin rajaynaynaa in aad wax aad intaan baninkii sameeyay inta dhimanna inuu dhammaystiri karaan qabnaa aad iyo aad ayaan mar kale idin bogaadinayaa waa idin hambaliyaynayaa shaqada aad qabateen waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan oo ku daysi leh dowlad goboleedyada kale inay ku daysadaan idinkuna dowlad goboleedyada kale meel ma fadhiyaan oo rasidooda horumaradan iyo kuwa lamid ah ka jira wixii markaas aanan jirin aad ku daysataan marka runtii dadka Soomaaliyeedna inaad u bandhigtaan oo aad tustaan waxa aad qabsateen dadka reer galmudug iyo dawladoodu waxa ay qabsadeen in dadka Soomaaliyeed loo bandhigo la ogeysiyo la tusiyo laana waxa wanaagsan oo waa la isku daydaa dhinaciina waad hagaajiseen hambalyan idin leenahay waxaan idinka rajaynaynaa inta dhimanna inaad ku dhamaystirtaan muddooyin gaaban wax qabadkan wax soo saarkiisina in la arko la dareemo dadka reer galmudug inay dareemaan waa mid ugu horeyso haday dareemi waayaan naga leexday idin leeyihiin haddana waxaan soo wadnaa oo ilaahay idinkiis inaan ku guuleysana rabnaa in dadka loo celiyo awoodda go'aanka lagu gaarayo marka dadku waxay la imaanayaan xisaabaadkooda ninkan odaga codkana weydiisanaya ama gabadhan codkana weydiisanaysaa ma cusub tahay mase hore u soo jirtay kii cusbay bal aan ku daynaa la dhaha fursad fiican oo leeyahay laakiin dadkiina hore dadkeena aan anaga dhan isku darnay hore dawladnimada uga soo shaqeeyay waana la cabirayaa muddadii ay joogeen maxay qabteen maxaa wanaagay soo kordhiyeen maxaa dhibaato ay xalliyeen ummadda ka dulqaadeen maxay ummadda u soo celiyeen maxaan ku rahaa hanka iyo qabka iyo ummadda muuqaalkeeda iyo dawlad maxay ka bedeleen waa la isku qiimeynayaa marka
dadku inay codkooda idinku soo doortaan ayaan rabnaa mar dhow waxaa loo tartamayaana waa kuraasta iyo mansabka aad joogtaan dadka haddaa waa dhammaatay xilligii runtii wax weyne ee dowladnimada meeshii joogtaan ku nimiday odaygii 135 odayaasheenii akhyaarta ahay ee noo soo jiray dowladii noo soo bilaabeen waa noo dhiseen horey noo soo dhaqaajiyeen waa ka wadnay waxaan dhahnay warbar kursigii qabiilka dhexdiisa lagu tartamo oo hal la geeyo oo maadaama dee aan anaga muxuu ahay mujtamac qabali aan nahay bal qabiilka hal la geeyo waa lagu soo tartamo waa ka nimiday meeshii iska joogi mayno bartiisyaqaan bari uma kororto ma noqonayno inay dowladnimada noo kororto ay noo cayisho oo adduunyada siday u dhaqanto aan u dhaqanaan rabno 35 sano adduunyadu siday u dhaqanto umaanaan dhaqmayn haddaan u dhaqmaynana waxay naga ahayd tacbaanay naga ahayd oo nooma xoogganayno muuqaal fiican nooma lahayn maanta waxaan rabnaa adduunyada siday u dhaqmayso inaan u dhaqanno marka u diyaar garooba ka shaqeeya waxaad ku soo noqonaysid waa cod dadkaagu ay leeyihiin dadka inay codeeyaan hadda diiwaangelina ka socoto waan hambalyaynaynaa galmudug inay diiwaangelinta ay ka bilaabatay annay sii ballaaranayso oo ay sii maxaa fidayso haddii alla yidhaah dadka inay isdiiwaangeliyaanna ka shaqeeya idinkuna u diyaar garooba halkaasaa muxuu ahayd mid qiimaynta dambe ugu soo horraysahay halkaasay ka dhalanay galmudug meeqa qofood ayaa iska diiwaan gelisay hadhowna waxaa la dhihi doonaa meeqaa ka codaysay dadka isdiiwaan geliyo dhammaan ma codeeyaan waxaa laga codaysiin karaa laakiin haddii loo sheego wacyigelin fiican dadaal fiican juhdi fiican la geliyo way codaynayaan dadku haddana sidoo kale haddii la geliyo way isdiiwaan gelinayaan waxaan rabnaa nambarka ugu badan reer galmudug inay isdiiwaan geliyaan hadhowna nambarka ugu badan in uu ka codeeyaan rajaynaynaa insha allah siyaasadda qaranka ee maxaan ku raadaay dalka galmudug astaamo waaweyn ay ku leedahay hadday tahay madaxda qaranka ee mustawa kasta level kasta leh galmudug waa ka dhex muuqataa laakiin degaankeeda la rabaa markaan awal waxay ka dhex muuqan jirtaa iyadoo degaankeeda aan la soo marin marka degaanka la soo maro bal sida siyaasadda qaranka ee uga dhex muuqata galmudug waa la is arki doonaa haddii la yidhaah xildhibaanada sharafta leh iyo wakiilada sharafta leh iyo muxuu ahay guddoomiyaha iyo guddoonka guddoomiye ku-xigeenada madaxweyne ku-xigeenka dhammaan waa idiin hambalyaynayaa waa idiin bogaadinayaa hore ha loo socdo haddii la yidhaah aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu